fadeexadaha dulhoganaya Maayir Mooge oo dad shacab ah ku sameeyay dhul boob. Xaafadda barakacayaasha Naasa Habloodca waxay ku taalaa waqooyi bari Hargeysa. Halkan waa baloogyada laga dhisay goobaha dadweynaha ee dugsiga, xanaanada, saldhigga booliiska ee barakacayaasha Naasa Habloodca. Waa goobta laga qaaday muwaadiniin reer Somalilan ah, iyagu markii hore iibsaday, islamarkaana aan ahayn dadkii iska lahaa beeraha oo iyagana markoodii hore dhowr jeer dhulkii danta guud ahaa ee beerahooda laga jaray la lunsaday. Inkasta oo Maayir Cabdikariin Axmed markii uu xilka qabtay uu la kulmay caqabado ay ka tageen maayirkii ka horeeyay iyo qaar ka mid ah xildhibaanadii hore ee ka soo jeeday galbeedka iyo waqooyiga Hargeysa, iyaga loo sibir saaro inay wixii dan guud ahaa ee beerahaasi laga jaray ee dugsiyo, xanaano iyo goobaha kale ee dadweynaha laga dhisi lahaa ay hore faasaxeen, ayaa haddana Mooge ka dhigay miskiin ayaa misko la fuulo leh. Waxaanu dhul ka qaaday muwaadiniin laba balood iibsay oo haba yaraatee aan wax dhul badal ah u samayn golaha deegaanka Hargeysa ee uu gadwadeenka ka yahay maayarka caasimadda Mudane Cabdikariin Axmed Mooge oo garaafka taageeradiisa ee dadkii codka ugu badan ku soo doortay uu hoos u sii dhaxayo. Waxaa ilaa iyo hadda isweydiin mudan sababta Mooge ugu gafayo muwaadiniintan oo cuskanaya xeerka maamulka dhulka ee magaalooyinka xeer lambar 17/2001 kaas oo qodobadiisa 2 iyo 1 iyo 2, 2 iyo 20, 3 iyo 20, 4 iyo 20 ay tilmaamayaan marka muwaadinka laga qaado dhul uu leeyahay ama jago uu leeyahay waxa uu xaqa u leeyahay iyo sifada loola dhaqmayo. Sida ku cad qodobka 3 iyo 20 farqadiisa 1 iyo 2 oo sheegaysa in qofka lagu fuliyo go'aanka kor ku xusan ee xubinta hal aad wuxuu xaq u leeyahay waxyaalaha soo socda. Qofka lahaa jagadu waxa uu xaq u yeelanayaa magdhow u dhigma wixii jagadaas uga dhisnaa. In la siiyo jago u dhiganta goob ahaan iyo cabir ahaanba jagadii lagala wareegay. Marka la bixinayo, marka la tixgelinayaa dhismaha in uu yahay mid waafaqsan shuruucda. Dhismaha khilaafsan shuruucda xubinta. Haddaba muddooyinkan dambe oo ay soo shaacbaxaysay xadgudubyada iyo ku camal falaanta xeerarka dalka, maayirka iyo xisbiga uu ka soo jeedo ayaa isa soo tarayay, waxaana muuqata sida layligu biyaha kashkiisa ku jira uu wadido sida Maayir Cabdikariin oo kale. Dadka xaafadda barakaca Naasa Hablood ayaa la dejiyey 2 sano ka hor, waxaana loo dhisay dugsi hoose dhexe iyo xanaano markii hore laga lunsaday baloodhadii laga dhisi lahaa balse markii dambe laga xoogay muwaadiniin. Haddaba muwaadiniintan oo ay ka mid yihiin Muuse Axmed Cabdilaahi, Maxamuud Bare Maxamed, Naasir Muus iyo muwaadiniin kale